Maxamed Cabdulaahi Farmaajo hogaamiyaha nabad iyo nolol waxa uu shaaca ka qaaday in heshiis uu la gaaray Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo ku qotoma sidii dhinacyadu ay u sii wadi lahaayeen dadaalada iyo sidoo kale qorshayaasha ballaaran ee lagu doonayo in heshiis doorasho lagu yahay dalka ay ka dhacdo. Waxa uu sheegay kulan gaar ah oo la qaatay guddiyo farsamo oo ka socday dowladda Soomaaliya in nabad iyo nolol iyo dowladdu ay isla gaareen qorshe ballaaran taasi oo ka dhalatay dadaalada iyo sidoo kale cadaadiska beesha caalamka. Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Maxamed Cabdulaahi Farmaajo isku soo dhawaashiyahooda waxaa loo arkaa mid kale oo utun xilligan ku ah mucaaradka, maadaama Maxamed Cabdulaahi Farmaajo muddooyinkii dambe uu banaanjoog ka ahaa mucaaradka iyaguna ay diidanayeen inuu ka qayb galo kulamada dowladda federaalk ee Soomaaliya golaha mustaqbalku ay la yeelanayaan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo loo arkayay inuu si weyn u diidan yahay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo sidoo kale tallaabooyinkiisa marka laga anba qaado waxyaabihii hore u dhexmaray labada mas'uul, haddana waxaa muuqata in golaha mustaqbalka Soomaaliya si gaar ah ay kaga didsan yihiin ninka lagu magacaabo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Laakiin kulankii ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ay isku arkeen hogaamiyayaal ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka ee urur siyaasadeedka nabad iyo nolol ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu hogaamiyo wuxuu ahaa mid la oran karay dadaallo iyo sidoo kale miradhal ballaaran ayuu sameeyey. Waxaana dadaaladaas iyo sidoo kale qorshayaashaas ballaaran ay sare u qaadeen hamiga iyo sidoo kale dadaalada. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxaa loo arkaa inuu yahay qunyar socod ama sidoo kale hogaamiye aan diidanayn in dhinacyadu ay wada hadlaan sidoo kalena la isugu yimaado doorashooyin toosa. Marnaba ma aqbalsana in dalkay dib ay uga dhacdo doorasho dadban, taasi oo ahayd midii isagu uu ku baxay, laakiin waxa uu aaminsan yahay in shacabka dib loogu celiyo doorashooyinka. Farmaajo taageero badan inkasta uu leeyahay, haddana sidaasi ay tahay waxaa muuqata isku soo dhawaashiye culus oo hadda dhex maraysa isaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Dhanka kale golaha mustaqbalka Soomaaliya warqad ay soo saareen waxa ay si weyn ugu soo dhaweeyeen dadaalada iyo sidoo kale qorshayaasha ballaaran ee dowladda Turkiga iyo sidoo kale in dhinacyadu ay ku heshiiyeen in si weyn loo dardargeliyo wada hadallada iyo sidoo kale qorshayaal lagu abuurayo jawi wada hadal. Waxaana guddiyadii farsamo ee maalmihii lasoo dhaafay ku kulansanaa Muqdisho laga bilaabo 6 bisha 7 iyo sidoo kale maanta oo 8 ahayd dhammaantood waxay muujinayeen xaaladaha iyo sidoo kale dardargelinta qorshayaasha ballaaran. Waxaana dadaalada ugu ballaaran ay si weyn u muujinayeen xaaladaha maalintaasi taagan. Si walba beesha caalamku doorka ay qaadatay iyo sidoo kale dowladda Turkigu waxay ahaayeen kuwo si weyn u dardargelinayay sidii dhinacyada Soomaalidu ay isugu imaan lahaayeen una gaari lahaayeen mowqif midaysan. Dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo mucaaradka ayaa loo arkaa in xilligan ay haystaan mid ka mid ah fursadayaasha dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo mucaaradka ayaa loo arkaa in xilligan ay haystaan mid ka mid ah fursadihii ugu ballaaraa ee lagu gaari karo heshiis dhinacyada dhex mara. Laakiin waxaa muuqata in dhinacyadu xilligan mid kasta oo ka mid ah uu doonayo ajando siyaasadeed oo gaara. Mucaaradka waxaa la leeyahay haddii ay ka faa'iideysan waayaan fursadan waxay noqon doontaa mid kale oo gabi dhaclaysa ama sidoo kale si kala fogeysa dhinacyada hadda isdiidan. Waxaana hadda muuqata qorshayaashii ugu ballaaraa iyo sidoo kale dadaallo ballaaran in si weyn ay u socdaan. Waxaana Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud si weyn tuhun looga muujinayaa kulanka dhex maray mas'uuliyiinta ka kala socday labada dhinac ee ku kulmay Nairobi. Waxaana la leeyahay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo haddii hadda uu u weecdo dhanka Xasan Sheekh Maxamuud laf dhabar weyn oo ka baxay mucaaradka ayuu noqon doonaa. Laakiin waxaa wararka qaarkood ay tilmaamayaan Xasan iyo sidoo kale Farmaajo inay adag tahay inay ku heshiiyaan kursiga iyo sidii ay isugu bedeli lahaayeen mar kale. Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo markaan loo filayo inuu noqon karo markaasi madaxweynaha 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya dhankiisa waxa uu muujinayaa dadaallo iyo sidoo kale qorshayaal ballaaran oo la xiriira sidoo u dardargelin lahaa xaaladaha taagan. Inkasta oo muddooyinkii lasoo dhaafay mashaqooyin iyo sidoo kale waxyaabo kale oo dul hoganayeen, haddana waxaa muuqata weli inuusan ahayn hogaamiye isdhiibay. dhan walbay noqoto Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Shariif Sheekh Axmed saddexdaba waxaa loo arkaa mid ka mid ah in dowladda Turkigu ay dadaal ugu jirto sidii loogu soo celi lahaa kursiga ugu sarreeya fila Soomaaliya. Waxaana dadaaladaas iyo sidoo kale qorshayaashaas ballaaran dhammaantood ay ka turjumayaan xaaladaha guud ee taagan hadda Soomaaliya. Markaan waxa u muuqataa inay u jihaysanayso doorashooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha kale sidii heshiis looga gaari lahaa. Xasan Sheekh Maxamuud iyo mucaaradka mid kasta oo ka mid ah waa ayidsan yahay waana ogol yahay in la qaato doorashooyinka tooska ah lagana fogaado wax walba oo dib u dhac u keeni kara dalka. beesha caalamka laftirkeeda doorkooda waa ay ku jirtaa in dalka ay ka dhacdo doorashooyinka tooska ah, laakiin waa in heshiis lagu noqdaa.
maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland Soomaaliya ayaa dhankooda muujinaya walaaca arrintaas ay ka qabaan inkastoo ay doonayaan in xildhibaanada soo socda Siciid Cabdilaahi Dani iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe mid kastoo isagu kamida uu soo xulo haddana waxaa muuqata in qorshaha ugu ballaaran iyo sidoo kale waxyaabahaasi aysan socon karin haatan waxaana dhinac walba oo kamida hadda muuqata dadaalo ballaaran dowladdu doorashooyinkii kala duwanaa ee ka qabatay Banaadir Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Waqooyi Bari Soomaaliya iyo Galmudug iyo Hirshabeelle oo miiska saaran dhammaantood waxay muujiyeen xaaladaha haadan taagan iyo sidoo kale qorshayaasha dhinacyadu ay sida weyn isugu diidan yihiin si walba ay muuqato xaaladdu haatan waxay muujinaysaa qorshayaasha iyo sidoo kale waxyaabaha kale inay yihiin waxyaabo si weyn looga walaacsan yahay haatan laakiin dardargelinta beesha caalamka iyo dadaalada qorshaha ballaaran ee loogu jiro sidii dhinacyada la isugu keeni lahaa waa mid door saliima ay ku leeyihiin dowladaha Mareykanka UK iyo sidoo kale Turkiga mid kasta oo kamid ah saameyn gaar ah ayuu ku leeyahay Soomaaliya waxaana xaaladdu ay gaartay marxalad miiska la isku garaaco dhinacyada ayaana loogu baaqay mid kasta oo kamida inuu joojiyo xaaladaha iyo sidoo kale waxyaabaha uu ku fakarayay xilligan qarsoon Xasan Sheekh Maxamuud Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo dhammaantood hadda waxa ay muujinayaan sidii loo heli lahaa tanaasul siyaasadeed inkastoo aan la xaqiri karin doorka siyaasadeed ay leeyihiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale Siciid Cabdilaahi Dani saddexdaasi mid kasta oo kamida waxa uu doonayaa xilligan sidii uu ku heli lahaa kursiga ugu sarreeya Soomaaliya ee filada laakiin waxa muuqata doorka saddexda kale ay leeyihiin in ay daboolayso mid kasta oo iyaga kamida dhan walbay ahaato Xasan Sheekh Maxamuud waa mid ku dadaalaya sidii uu mar kale ugu soo noqon lahaa Soomaaliya uuna dhihi lahaa waa inaan Soomaaliya mar kale aan hogaamiyaa markii saddexaad taasi oo u noqon doonta rikaar asaga u gaara laakiin Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa la isweydiinayaa ma noqon doonaa mid soo barbareeya Xasan oo mar kale ku guuleysta kursiga dhanka kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dhankiisa doonaya markan in uu markii dowladii ku meel gaarkeed uu hogaamiye kadib uu hogaamiyo dowladda Soomaaliya waa wadaad loo arko qunyar socod haddana sidoo kale muujinaya dadaalada iyo sidoo kale waxyaabaha ballaaran ee haatan taagan Sheekh Shariif Sheekh Axmed waa marka laga eego dhan walbaahi waa hogaamiye dhanka walbaahi ka dhisan ama sidoo kale dadaal gaara muujinaya marxaladahaas iyo sidoo kale xaaladahaas togani dhammaantood waxay yihiin kuwa siyaabo kala duwan saameyn gaara ugu yeelanaya dhan walba oo kamid ah dhinacyada laakiin xaaladaha iyo sidoo kale qorshayaasha ballaaran dhammaantood waxay xilligan muujinayaan in dhinacyadu ay si weyn hadda ugu hoggaansan yihiin beesha caalamka iyo sidoo kale doorkooda dowladaha Mareykanka UK iyo sidoo kale Turkiga mid kasta oo kamid ah marka laga tago walaaca ay muujiyeen laakiin haddana waxay cadeeyeen in ay weli power ku leeyihiin Soomaaliya waxaana loo sheegay dowladda federaalka ee Soomaaliya haddii aysan u hoggaansamin qorshayaasha iyo sidoo kale dadaaladu inay si weyn markaasi loogu diidi doono dhaqaalaha iyo sidoo kale qorshayaasha ballaaran oo kabka ciidanku qayb ka yahay dowladda Soomaaliya oo arrintaas dhibaato u aragtana waxay aqbashay gorgortanka iyo sidoo kale wada hadalka muddooyinkii ugu dambeeyay waxa la leeyahay Mahad Maxamed Salaad ayaa ahaa Xasan Sheekh Maxamuud gacantiisa midig iyo sidoo kale nabadoonkiisa isaga ayaana meelo badan ilaa iyo hadda kala furfuraya oo dadaal badan bixinaya si walba ay noqoto dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo mucaaradku haatan waxay taagan yihiin seeridii ugu dambeysay iyo sidoo kale halka ugu ballaaran waxaana muuqata qorshihii ugu dambeeyay ee dhinacyadu inay si weyn ugu dadaalayaan sidii loo dardargelin lahaa xaaladaha guud ee socda mucaaradka Soomaaliya iyo sidoo kale dowladdu haatan waxay marayaan qorshihii ugu dambeeyay oo lagu yagleelayo dowlad cusub